marka inaad maanta qunyar iska tiraahdo marka hawshaadii dhamaysatay gogol baan dhigayaa sax maaha ninkii gogosha dhigi lahaa adigu ma tiid aduu ninkii dagaalamayay baa tahay waa lagu jawaabaya jawaab mufassal oo faahfaahsan horaa loo diiday malaa warkii Faysal Berigi uu shubay buu jeedaa baan malaynay in badan bay culimada dacwa salafi munaadara ku baaqeen bal mubaahalay ku baaqeen day tahay Sheekh Abdul Karim day tahay Sheekh Ukash Sheekh Xasan Xabaab rahimahullah Sheekh Ahmed Eid علماء الدعوة السلفية مناظرة مساجد اللي يسكو خلاف سنية هاي لقى قالوا ديار بيوي درس سؤال كاسين لو وجهه لكن تعليق يا تعليق اسوء حكو ساب سنية هاي قضب كيس كوبات ذاتك محاضرات كان دقيسانيا اولا وين يكون دقيستان بإخلاص هي حق دونيمو wixii xaq u cadaadana waa inay qaataan wixii baadil u cadaadana waa inay ka tagaan taasub iyo hebel baanu isku qolanahay iyo hebel baanu isku jamaacanahay waxa soo dhan meel iska dhig alxaq waa xaq aan yutaba niyadaaduna xaq doonimaha noqoto hana dambaabi intaad garanayso ku eekow wixii aanad garanayna ha ka hadli cidna aflagaadiya ay hawla imanin dad مسائشة كان ليس علمي هي عدالة كهذا هي آداب هي أخلاق تعليق لبعض وحية هاي شيخ عمر الحلي بوهضل حلي جبدي محاضرات كيسة واحد جوجل بودي جوجل وحوري وده عن رد قلده عن ردني يبودي بريهم بقى عن ردين تكودي iyo wadaadada kalaba waxaan ugu yeeray in la isu yimaado oo wixii masaa'il la isku khilaafsan yahay laga niqaasho umadana buuqa laga daayo oo wax tarkeeda laga shaqeeyo munaadaradii Sheekh Ukash waa ka cudur daartay horena way u diideen munaadaradii marka hadday culimada Soomaalida kale qaar baa iga aqbalay qolooyinka aan radinayay culimada dacwa salafiya buu jeedaa hadday iga aqbalaan inuu hawshaasaan ku baaqayaa buuri waxaan leeyahay anoo taa ka jawaabaya ugu horeyn Sheekh Umar hawshaas waxay ku eekayd bil ka hor bay ku eekayd inta aan dhex gelin wixii aad dhex gashay oo aanad samayn wixii aad samaysay hadday ujeeddadaadu tahay dadka in la jamciyo والحق لغو ميدايو وخي لا اسكو خلافسيه مسائل laga doodo laga gun gaaro buuqiyo khilaafkiyo ruduudeeyo wuxuu ay dhamaadaan waxay ahayd ugu yaraan markii dawladda lagu qabtay Nairobi ee talaabooyin tirsan ay culimadu ku jireen inaad u yeedhad casuunto aad tiraahdo oo bal soo fadhiista waxaan isku khilaafsanahay bal aynu iska wareysano oo aynu ka niqaashno oo si miir qabta aynu wada hadalno oo aynu ka gun gaadhno laakiin bil baad hadda hadlaysa dhowr iyo toban muxaadarana waad gashay waxna maad reebin wax walba waad ku hadashay waxaad tidhi waa mukhaabaraad iyo jawaasiis waxaad tidhi waxay hayaan shaqadii cadowga islaamka ملحدين يا علمانيين وكنا استنباطيو شيغاده كواس u seexday waxa tiri reer galbeed hatta Israa'iil sidii ay doonayeen ba u shaqeynayaan waxa tiri dacwadii iyo khayrkii ay la dagaalameen qof ay ka tageen ma jirto qof aan aqoon mooyaan usul iyo mabaadi aan jirin iyo warar aan jirin baad dacwadan iyo ducaadeeda baad ka sheegtay marka inaad maanta qunyar iska tiraahdo marka hawshaadii dhamaysatay gogol baan dhigayaa sax maaha ninkii gogosha dhigi lahaa adigu ma tiid aduu ninkii dagaalamayay baa tahay waa lagu jawaabaya jawaab mufassal oo faahfaahsan ayaa horta lagu jawaabaya wixii aad war sheegtay dacwadan ka sheegtay wixii masaa'il aad ka sheegtay oo dhan waa laga hadlayaa marka ay dhamaato haddaad munaadaro diyaar u tahay adiga iyo xisbigaaga iyo axsaabtaada
إلا ما أوران كرتان وحزبنا ما هي ما أوران كرا شيخ عمر أنت إن وحفام يسأل وما أوران كرو أوران كرتان محان وأوران كرين سو كيري أنا جو أورنا ما هي أورنا ومحني وحان وأوران كرين أورر هي حزب مركو قياح يوحو يري عيد كاستاء وحسكوا فقدا فكر ما هودود وحسكوا فقدا حتى هالمسألة تسكوا فقدان وحزب marka sheekh umal ahzaabta kila soo qaadaba waxay isku waafaqsan marka xisbi kasta isku xisbi bay isaga marka taariifkiisa laga duulo marka adiga iyo ahzaabtaadaba isku darao علماء الدعوة السلفية مناظرة مساجد اللي اسكو خلاف سنية هاي لقا قالوا ديار بيويهين سوى ديار قروب نظام كيدين هل الدتشيو ديت هاي عد المناظرة دا ماموشة iyo cid xakama oo dadka kala xukumta yaa saxsan yaa masalan ku saxsan yaa ku khaldan laakiin munaadaro diyaar baa lagu leeyahay ku abshiro ku biicabtaas horaa loo diiday malaa warkii Faysal Berigi uu shubay buu jeedaa baan malaynay in badan bay culimada dacwa salafi munaadaro ku baaqeen bal mubaahalay ku baaqeen day tahay Sheekh Abdul Karim day tahay Sheekh Ukaash شيخ حسن حبيب رحمه الله شيخ أحمد إيد sidaas oo kale Sheekh Maxamed Cabdi Daahir in badan buu Sheekh Umal iyo rag kaleba ugu yeeray war kaalay aynu kula nooxan isku khilaafsanay aynu ka wada hadal aynu ka doodno aynu ka gungaan marnaba ma ahayn salafiyiintu kuwo in la doodo iyo in la wada fadhiisto wixii masaa'il diini la isku khilaafsan yahay laga wada hadlo laga niqaasho marnaba kuwa diidana ma ahayn haddana diyaar bay u yihiin wadadeeda un hala maro shuruudeedana hala ilaaliyo intaasaan warkaa iyo tacliiqaana aan ku gabagabaynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ka dhigo quluubteenna iyo acmaasheennaba khaalisa liwajhihi wixii khalad iyo gaf iyo dembi aan gallo ilahay baan ka baryaya naga dhaafo wixii saxana ilaahay baan uga mahadnaqaynaa ilaahayna tawfiiq baan weydiisanaynaa xaqa inuu na waafajiyo بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين